waayahay maanta qubanaha waxaan filayaa inaa qusul diyaar aad u tahay sababtoo ah Donald Trump maanta wuxuu qabtay shir jiraa'id shirka jiraa'id wuxuu shaaca uga qaaday hadiyadii uu shalay noo sheegay oo uu lahaay Iiraan la iga soo diray 10 markab oo ukaadi qusulku dhiman yahay qaybtan ma aha qusulka 10 markab oo shidaal uu ka buuxo shidaalka Iiraan ayaa la ii soo diray Iiraan ay soo dirtay hadiyad waay waa ii soo socotaa oo soo briya soo shircanay markibtu waa diyaar ayuu Donald Trump niyiri laba kale ku dar 10 markaba soo socod 8 uu sheegay laba kale lagu sii dar laba kale gadaal ka soo direen uu taagay saaxiibka isku dardarkii waa 10 waxa Mike ka daba qaatay Mike qoladan jariirada loo yaqaano Bloomberg waa jariirad Mareykanka ka soo baxdo kuna takhasustay marinka Hormuz iyo maraakiibta shidaalka waxa meesha satarlaada isticmaalaan 20 daqiiqo kadib markii Trump uu hadalka jeediyay jariirada waxay soo qortay anaga aaga indhaha ku heeno maanta ilaa xalay ilaa shalay ilaa daraad ilaa waqti xaadirkan wax 8 markab u dhow oo calan Pakistan iyo calan Iiraan midna uu saaran yahay oo soo shiracday oo soo socdo anaga uma jeedno waa saxaafad Mareykan ayaa ku qarxisay dhigil yiraahdo Trump waxay taagan tahay saxaafadda wax anaga aragno oo soo shiracday oo maraakiib ah oo Hormuz yaalo oo Mareykanku soo socdo uma jeedna dhahan waxay isticmaaleen waxa loo yaqaan tracker waxa jiro maraakiibta قبل لو ترى قريه جرت صعبدا markuu ku takhasustay taas oo igaas soo baa qosolkaas horta hadalka ninka Trump ah waa idin wada laakiin wax yar waxa kale rabaa qaybta dambe ninka odaga ahaa Abbas Araji atqanaan wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo asagana maanta hadlay hadalkiis waa idin wada waxyaabo culus oo sheegay iyo sidoo kale khirasho Trump oo maanta su'aal weydiiyay su'aasha weydiiyay waxay ahayd madaxweyne Iiraan waxay lacag ka qaadaysaa lacag baad ah ama cashuur markab alaale iyo markabkii soo maray badda Hormuz oo $2 milyan ah oo saas ma sameyn jirin hadda awood badan ku habsadeen marka maxaa kale leedahay Trump oo qiranayo in waxba uusan ka qaban karin sheekadaasna ay jirto muuqaalkaasna waa idin wada aku bilaawno qosolka laakiin marta nick Trump ah oo sheeganayo 8 markab oo inta ah 2 markab oo inta suus galay maal cabiro ayaa leedahay isku dar 10 markab oo gaas iyo shidaal uu ka buuxo oo noo soo sharaacad noo soo socdo waa kan qaybta kale ee saxaafadda qosolka ee Trump saxaafadda ku qarxisay Trump ee leedahay waxa waxba kama jiraan waa saxaafadda Mareykanka ee xitaa Iiraan ma aha Trump soo hadlay saxaafadda Mareykanka ka soo dabaashay oo taagan waxa ay sheegayso madaxweyne xabad ka jirto We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And they were real. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said. And they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations. Waagan marka Bloomberg oo tooshka ka daba qaatay Mike ka daba qaatay oo soo kormeeray arrinkii oo soo qoray madaxweyne waxba kama jiraan wax anaga u jeedno trackerka ku aragnay oo Trump wuxuu lahaa dabcan calan Pakistan saaran laakiin Iiraan ay soo dirtay waxba kama jiraan xabad kama jiraan laba xabo bas ala arkaa oo calan Pakistan u saaran yahay 10 xabo sheegos aniga ma sheego ma jiro way aragayaan way aku xijiyo maadaama wali qodobka Trump ku gudi jirno waa kana Trump oo gabar su'aal ay weydiinayso ee leedahay madaxweyne Iiraan meesha isbaaray dhigatay maraakiibta soo marto noocay ahaadaanba lacag ay ka qaadataa carabti kale meesha waa laga bursaday maxaa ka leedahay arrinkaas Trump oo qiranayo waxban uusan ka qaban karin waa kan well, should they be able to? I mean, they shouldn't be able to, but they're doing it a little bit. I don't know. Look, their capability is a lot less than it was 2 weeks ago. idin fasaxo
cabaas araaji sida ogtihiin labada maalin lasoo dhaafay tuhunka ah wadahadalaa socdo wadahadalaa intaa laga dhacay waa wadahadloonaa trambalin intaasoo dhan noo sheegayay iiraan wadahadalan naga dhexeeyo way nala soo hadleen xiriir toosaa waa wadahadloonaa intay ka dhacday asaga le noo sheegaya waa kan cabaas araaji oo si toos ah marka asagoo saxaafadiisa la hadlayo iiraan oo dhahayo maraykan horta warqadii 15 qodob ee nala soo direen gacanta ku haynaa waa aragnay laakiin jawaabaa siinay kir iyo kud ah waxba kama jiraan waxa soo qorteen wada hadalne waxaas lama dhaho horta adin fasaxo hadalka afka soo ku hadlayo yar بروز و ظهور از قدرتمون هست در منطقه که فکر نمی‌کنم دیگه کسی جرأت بکنه که way يعني طبعا wuxuu leeyahay waxba kama jiraan wada hadal toos ah oo noo dhaxay oo ka wada hadlayno wax la yiraahdo wax wada hadal ma jiraanba Trump uu ku adkeysanaya maanta xitaa shirki jaa Trump uu fadhiyay wali sidii nala soo hortaagay oo hadlayna koo fiican oo meesha jooga la hadlayna hadiyada ay soo direen markuu waxa isleedahay war dadkan laba adduun ku kala nool yihiin Iiraan uu Trump la hadlooyo waxa isleedahay branka miya dal kale oo been bug ah ma fariinka u soo dirooyo kuwaas mu iska aaminooyo ilan Iiraan rasmiga ah waxa waa aragnaa way hadlaysaa nibi horta waxa xusid mudan oo muhiim ah dabcan labadii maalin hadda la soo dhaafay ciidamada Mareykanka duqeyntii tirada badneed horta Iiraan ay ka wadeen way yareeyeen way joojiyeen aniga indhaha ku hayo waxa islahaa Trump intan uu hadlaa meelaha ordaayo bal sheekada ma socota waxa hadda ugu badan duqeynta Iiraan gudaheeda ka wado waa Israa'iil warka ay siiyo maanta waraa ka soo baxay Israa'iil oo ah in hubkii iyo rasaastii iyo difaaca cirka wixii oo dhan ay gabaabsi yihiin oo muddo ay u baahan yihiin xabad joojinta marka dagaal farqaybta xasaasi waay xabad joojinta labadan dhinac Mareykan iyo Israa'iil aad ugu baahan yihiin sababtoo Israa'iil markii Iiraan ay fiirsid ka soko Lubnaan ee dhul qabsasho ka wada wabiga Litani ee dhahaan hadda qeyrida ay fiir Lubnaan qaybtaan oo dhan Israa'iil hadda qabsatay inta Iiraan anaga ku mashquulsaneen dhul ay qabsadeen dhulkaasna ciyaar lagu qabsano qole Xisbullah la dagaal lugta ah jugta isla galeen marka warka soo baxaya wuxuu yahay hubka iyo rasaasta waa gabaabsi sameynteeda ama soo saaristoodana waqti u baahan tahay cid Iiraan ahaydna xilliga ay u qabteen inay juc ku dhahdo oo la rido way soo dhaaftay wali gantaa la heestaan marka waa sababta Mareykan uu u rafanayo xabad joojin uu tacban ugu yahay waxa kale oo soo kordhay wax loo yaqaan poliska xogaha dadka laga qaado Mareykan gudahooda Donald Trump waxa si naaqusayo taageeraha loo haayo marka la fiiriyo dagaalkan Iiraan ula galay dadka taageero ayaa maalin ka dambeysay naaqusay maxaa yeelay sicirkii shidaalka sicirkii xitaa guryaha wixii oo dhan hawada sii galay Iiraan marka ayada saan dana ugu jirto dad aqli la waa inay shakadan sii socoto dagaalkan uu sii socdo waxay og yihiin in adduunka oo dhan gabaabsi uu noqonayo ila madaxdoodii la dilay dhulkoodii la burburiyo mugta adiga almuhim warka soo koob Mareykan Israa'iil si degdeg ah oo boobsiisa ay ugu baahan yihiin xabad joojin xabad ay qabowdo dagaalka inuu joogso maaya xabad ay qabowdo si dib ugu durqaan oo sicirkii waxyaabihii dib u soo celiyaan oo rasaas badan loo soo saaro haddana dagaalka ay dib u galaan Iiraan laakiin joogada oo ku faantay wixii taagan tahay waxaas wax soconaya ma way wixii soo kordho insha Allah way idinka daba keeni doonaa